أحمد ما مسنتها ويل سوماليات أو أتصاحب أهيدين استقانان magaalada jooga dhalinyaro ah halkan ku dhashay hami siyaasadeed leh qorshe uu ku kaambeyn gareystay dad badan ay ku qanceen ilaa 65,000 oo qof baa u codeysay ay ku qanceen inaad ka codeysay oo ka kaambeyn gareysay ma aaminsantahay absolutely not anaga de number 1 waa kala fikir duwanay fikradina way kala laba nooc ay kala ahayd marka iskaga ma codeyn kartid qofka because of oo qof Soomaaliya waxa anaga aaminsanahay asaga ma aaminsanayn iyo maxaa la dhahayay xisbiga qaybta uu ka yahay oo ah socialist marka anaga ma aaminsanayn taas Ahmed kameradaha iyo shaashadahan ka daawaday qoraallo badan oo soo qortayna waa akhristay waxaad ku celcelinaysay waa laga soo gudbay munaafaqadii waxa laga soo gudbay xilligii maxalay la aarsan lahaa muuqaal aad maanta duubtay waxaan arkay adigoo leh wixii ay shalay sameeyeen baa lagu sameynayaa yaa way cidaas aw jawaabaysid alla helsid good question way horta dadka bahashan horta qabiil ma ahayn taas markastana ku soo celiyaa wareysiyadan hadda dib u raacdid qabiil anaga marna kama hadlin waxaan ka hadlay laakiin qaab qabiil bay u muuqataa hadda waa sharxaya qaab qabiil ma ahayn meesha qabiilka kaga soo galayso waa sa ayaga u turjumantid waa hadduu qofka asagu qabiiliya qabiil ahaan uu arkaayo laakiin hadduu ka fiiriyo the bigger picture qabiil marna shaqo kuma lahayn anaga waxaan la hadlaynay koox yar oo is abaabushay oo xilalka haya magaalada oo runtii ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysanayo kala qaybtanaanta ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysanayo waa dadka anaga u oleynay shalay Soomaali ahaan ku soo saarnay marka waxay sameeyaan dadka inay ayaga qabiilay waa wareey gurbaanka ay garaacaan danta ugu jirto because kala qaybsanaanta ayagu ku faa'iidaan labo dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo han la magaaladan ka tartantay waa diideen inay taageeraan ama ay u codeeyaan ama ay soo saaraan waa diideen marka waxyaabahaas oo dhan dadka anaga aan rabnay inaan la hadalno oo aan maanta ku soo celcelinay waa dhalinyaradaas oo aan leenahay maanta waa idin tusnay in shacabka haday kacaan xilalkiina inahayn doonin maxaa loo baahan yahay marka su'aasha maxaa xala halka wuxuu ku jiraa in aan ka wada shaqeyno Soomaalinimo in waxaan munaafaqada joojisaan oo inta gurbaanka garaacdaan aad tirahdaan Soomaaliyeey waa wareeyay kaar Soomaalida gormu shaqeeya marka